magacaygu waa Magaal tan waa sheekadayda. waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa kuna barbaaray barashada dugsiga hoose iyo tiin xabaan ku soo qaatay sidoo kale barashada jaamacadeedana aan ku soo qaatay anigu wax soo bartay beeraha iyo cimilada agricultural and environmental science markii aan heli waayay meelo macnaha aan aqoontii markaan soo bartay aan ku sii horumariyo oo dadna aan ku shaqeeyo waxaan damcaynan skills raadsado marka skillkii ila qumanaa ee waqtigaan sida fudud ku yeelayna wuxuu ahaa baristinimada waxay u dhaliyeen inaan barista noqdo horta marka hore niyaddeeda kuma jirin inaan barista noqdo wax aan qorshe kala hayo hadaf kala haamay ahayn laakiin si kaliya ayay ugu dhalatay fikradaas ka horeysa waa ka yarxajinay anigoo baristinimo ama baristinimo ku shaqeynaya waan sida iskala qabsaday hadda waxaa weyn noqotay waa xirfadan ku faano horta amnooda ugu weyn ee baristinimada ama qofka baristaha inuu noqdo raba soo wajihi karta waxa weeyaan in macnaha waxyaabaha dadka kaga soo noqonaya ficillinta dadka kaga soo noqonaysa marka ugu horeysa shaqadan horta looma haystaba shaqo dee maxaan idhahaa sare oo qiimano oo macnaha qofka ka shaqeynaya uu ku leeyahay qiimo sare uma haystaa waxaa haystaa dee shaqayska aan la mid ah shaqooyinka noocaas hoose la mid dhalinyarta ilawidka talooyinkan siin lahaa waxaa ka mid ah in aanay isku xidhin mar walba meesha ay rabaan inay gaadhaan waxyaabo badan ka soo horeynaya caqabado badan ka soo horeynaya marka mar kasta meeshii ku fududaatay is leedahay waxbaad ka keeli kartaa in ay xoogga saaraan oo isku dayaan inay bal natiijo ka keenaan dhalinyarada waxaa soo jeedinaya inay xirfadaha hoos u eegaan waliba xirfadaha ay heli karaan waqtiga ay baran karaan sidoo kale in jaamacada ka soo baxda ama aqoon guudneed adigu bay si gaara ku anfacsan shakhsiyan laakiin xaaladda jirta ama maxaa la dhahaa waaqica hadda aan ku noolnahay waxa keliya ee aad ka horumar karaysaa ama isbeddel degdeg u samayn kartaa waxa weeye xirfadahaaga marka dhalinyarada wax kula talinaya inay xirfadooda dhisaan haddii aan usoo noqday xirfadan aan hadda ku shaqeeyo waa xirfad runtii anigu horta aanan hore ugu fikirin ka hor maalintaas ay igu soo dhacday ismana lahayd amar baad ku shaqayn doontaa xirfadda hadda ku shaqeeyo wana waa taa xirfad aad u wanaagsan oo maxaa la dhahaa skill dee aan runtii u riyaaqay ku shaqayntiisa laakiin isma lahayn waad ku shaqayn doontaa haddana inaan ku shaqaynayo aad baa ugu faraxsanahay